bulshadii Turkida ahayd ee guryaha inugu soo gargaraaci jirtay ee talaagada intay furto eegi jiray haday maran tahay inoo soo buuxin jiray ee roogaga inoo keeni jiray ee oran jiray waxa tihiin duriyadii Bilaal al-Habashi ee noo duceeya bulshadii nooca ahayd maxaa sababay maanta in ay yiraahdaan dalka nooga baxa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو هناكسن وحا إن بدن سؤال الإسكو ويديني أما ضد بدن أو إلى سحريري أي ويدينيين وما حي وحا كرد عايد الكتركية صومالي بالحري سذيبي وحودعين وحن شعال هاي مقال كان إن عن بلسيدي وحودعين وحكم ذا تلمامو سيدو كلنا ورر كتير كتينا أو دتكو إلى وريجيان عن حقيقة ذا تلمامو كلمة wacyigelin iyo baraarujin ahna jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ku nool aan halkan uga soo jeediyo hadii aan ku horeeyo bishii sagaalaad dhowr iyo 10keedii adigu 14keedii 15keedii ayaa dhacdooyinkani ay dhaceen dhacdooyinkani waxa ay ku salaysnaayeen dad Soomaaliyeed oo joogay goobo ganacsi oo iyagu leeyihiin ama ay shaqaale ka ahaayeen ayaa dadkii mulkiilayaasha ahaa iyo dadkii mas'uulka ka ahaa laga qaaday galabnimo dawladdu markii ay u timi ama ay doonaysay in ay kaxayso dadkan waxa loo sheegay in ay waraaqa ka soo saxeexi doonaan saldhigga booliska oo looga baahan yahay inta badan dadku iyagoo aan diidin wax caqabadana aan hor dhigin booliskii ayay raaceen laakiin markii la tagay halka wax badan ba isbedelay ma doonayo marka in toddobaadkii la hayay dadka ay xidhnaayeen iyo meelihii kala duwanaa ee la geeyay iyo siyaabihii loola dhaqmay iyo waxyaabahaas oo dhan in aan ka warramo ma doonayo laakiin arinta aan doonayo inaan faahfaahiyo dadka horta maxaa lagu xidhay inta aanan gelin waxa lagu xidhay sida aad la wada socotaan qof kasta oo Soomaali ah oo dalka Turkiga jooga ama goob ganacsi ku leh waxa aan rajaynayaa in uu xogta dalka Turkiga intii aanu soo degin uu raadiyay bulshadeenu si xawli ah oo aan kala had lahayn ayay ugu soo guureen Turki waxaana la eegay maciishadiisa iyo noloshiisu inay jaban tahay ganacsiyana waa laga furtay laakiin xeerarka dalka Turkigu waxa ay qorayaan marka aad doonaysid in aad goob ganacsi furatid waxa la sameeyaa 3 dokumenti oo muhiim ah oo goobtaada ganacsi in ay ka muuqdaan la doonayo ayaa la buuxiyaa oo laga soo qaataa dawladda 3 dokumenti la'aantood goob ganacsi ma furan kartid laakiin qof kasta oo ajnabi oo yimaada shirkad wuu apply gareyn karaa wuu furan karaa dokumentiyadeeda wuu dhameystiran karaa haddaba halka waxaan doonayaa inaan ka cadeeyo dad magaalooyinka iyo meelaha qaybtood iyo baraha bulshada iyo aan ku arkayay oo tilmaamayay Soomaalidii iyagoo sharci darro ku shaqaysanaya ama goobo ganacsi oo aan sharciyeysnayn haysta ayaa dawladda Turkiga ay xidhay arintaasi waa been ma jirto goob ganacsi oo dawladda Turkiga booliskeedu ay tageen oo Soomaaliyeed oo sharciyadii xafiis ama shirkad lagu furan jiray aanay u dhameystirnayn ma jirin goob kasta dokumentigeedii iyo sharciyadeedu 100% way u dhameystirnaayeen haddaba xagee bay dhibaatadu ka timi waa maxay sababta dadkan lagu xidhay haddaba qofka Turkiga la socda iyo systemkiisa dawladda Turkiga sharcigeedu waxa uu qorayaa marka aad doonaysid in aad shaqaysid waa in aad haysatid wax la yiraahdo çalışma izni ama work permit idnul amal ogolaansho lagu ogolaanayo in aad shaqaysid waa card la mid ah kaarka iqaamada oo qofku uu qaato sidoo kalena uu ku jiro in uu leeyahay health insurance ama sigorta caafimaad kaarka waxa lagu helaa oo qofka ajnabiga ahi uu ku helaa marka shirkadan uu ka shaqaynayo qofka muqaabilkiisa la shaqaalaysiiyo 5 qof oo Turki ah tusaale ahaan company baan furtay marka aan companyga furanayo ajnabi kasta oo aan ahay dawladda Turkigu wixii ay iga baahan tahay oo dhan way weydiinaysaa waana buuxin karaa
markii aan kambaniga dhaqaajiyo dowladda Turkiga waxay doonaysaa dadka ka shaqeynaya inay noqdaan Turki haddii aan doonayo qof ajnabi in uu iiga shaqeeyo kambaniga waa in marka 5 qof oo Turkiya aan shaqaalaysiiyo aan keena hal qof oo ajnabiya halka qof oo ajnabiga waa la igu ogol yahay sida haddaan qof kale u baahdo waa inaan 5 kale keena maxay markaa u danaynaysaa dadkeedu in ay shaqo abuur ka helaan ganacsiyada iyo businessyada ay keenayaan ajaanibtu iyo maalgashiga ay dalka ku sameynayaan arrintaas waa waadix Turkiya kaliya kama jirto dalal badan oo dunida ay ka jirtaa China adoo dad badan oo dhowr qof oo China adoon shaqaalaysiin kama shaqayn kartid adduunka meelo badan bay ka jirtaa xeerkaas markii kambaniyada Soomaalida la furayay waa la ogaa dadka oo dhan way ogaayeen laakiin dawladdu indhaha ay ka laaban jirtay hadda magaalooyinka waaweyn Istanbul Ankara magaalooyinka waaweyn waxa qabsaday xisbiyadii mucaaradka doorashadii ugu dambeysay dawladda iyaga ayaa kaga guuleystay baladiyooyinka ama maayirada magaalooyinka ee la dooranayay iyaga kaga guuleystay sababta ay uga guuleysteen waxay ugu badnaayay ku codeynayeen waxay ahayd in dadka ajaanibta ahi jaanisyada badan ee dawladdu ay siinayso ay ka yareynayaan dadka Turkida ana ay wax badan siinayaan waayo warbaahinta Turkiga marka aad dhageysatid waxay ku oranayaan jaaniskii aanu haysanayba waxa qaadanaya dad ajaanib ah marka arrintii bay ku guuleysteen maanta waxay awood u leeyihiin qoliyaha mucaaradka ee magaalooyinka waaweyn haysta wixii xeerka ku qornaa ee dawladdu ay indhaha ka laaban jirtay in ay si dhab ah u fuliyaan ugu dhaqmaan dadkan ay ugu qaadaan dawladduna ma oran karto maya sababtoo ah waa xeer yaala marka hal qof uu shaqeynayo ajnabiya 5 qof oo Turkiya in la shaqaalaysiiyo kambaniyada Soomaalidu waxay isku dayeen in maadaama ay ganacsi haystaan inay abalay gareeyaan ama ay codsadaan laakiin suuragal ma ahayn in 5 qof oo Turkiya la shaqaalaysiiyo bal waxaad sawirataa ninka makhaayad haysta makhaayadiisa dadka ka shaqeeya ama dadka uu u shaqeeyo waa Soomaali waxa laga yaabaa 4-5 qof baa ka shaqeeya gabigeedaba 5 qof hadduu Turki ka dhigo Soomaalida sidee bay isugu fahmayaan Soomaalidu dad u furfuran ama u jajaban markiiba luqadda dalka inay bartaan ma aha dadkii 5 sano 6 sano 7 sano deganaa dalkan ayaa wali turjubaan u ka haysta goobaha ay u baahan yihiin marka xoogaa way adag tahay waayo meelaha la qabtay waxa kamid ah goobo ganacsi oo ah hoteeladii cunto Soomaalina sameynayay waxa kamid ah koonfeero habla Soomaaliyeed ay haystaan oo timaha Soomaalida ay ka shaqeeyaan Turki timaha Soomaalida waxay ka fahmayaan baan jirin tima jarayaal baa kamid aha oo Soomaali u shaqeynaya nin ajnabi marka la keeno tima jaraha oo Arab ah ama Turki ah qofka soo gala Arabka u tagmaayo qofka Soomaaliga u tagay xitaa wuxuu kaga sii kalsooni badan yahay Etoobiyaanka inuu tago waa timihiisu fahmaya laakiin qofkani timihi Soomaaliga ma fahmayo waxa kamid ah goobo iqaamadaha lagu xireeyo ardayda jaamacadaha loogu dalbo dukumentiyada noocaas lagu xireeyo Soomaali ba ka shaqeynaysa sababtoo ah qof Turki hadii Soomaalida u baahan tahay Turki inay u shaqeyso goobaha kale Turkida ay tagi lahaayeen waxa ay goobahan Soomaalida u imanayaan waa inta haddaba mushkiladan noocaas ah qaabka ay u dhacday horta waa qaabka noocaas waxaana sababay dacwado badan oo dadka Turkida ah ee goobaha ganacsi ee Soomaalidu ay leeyihiin ku hareeraysan ay ka gudbiyeen waad ogtihiin bulshada Soomaalida mushkilada haysata waxa weeye marka ay meel degaan horta hal meel bay isugu tagaan xaafad kaliya isugu tagaan xaafad bay ku badan yihiin gaadiidka iyo waxad moodaa xaafada marmar waxay soo dhanaysaa talow miyay ka qaadeen Turkiduna waxay aaminsan yihiin laba arrimood aad bay u ilaaliyaan arinta koobaad waxa weeye wadaniyadooda iyo dhulkooda waxay aaminsan yihiin ajaanib badan hadii ay timaado dhulka la idinka qaadaya marka difaac bay galayaan arinta labaad ay aaminsan yihiin waxa weeye dhaqaalaha iyo ganacsiga oo qofka Turkiga isagoo 80 jira ayuu ganacsanayaa shilinka uu ku dhintaa Turkigu Soomaalidu hadaba maxay sameeyeen waxa laga yaabaa qof Soomaaliya ayaa wuxuu u baahanayaa in iqaamad meel looga soo xereeyo wuxuu soo kaxaysanayaa 4 qof ama 5 qof waxa laga yaabaa xawaalad ayuu wax ka doonayaa wuxuu soo kaxaysanayaa 4 qof ama 5 qof oo malxiisi ah
ilaa bishii sanadkii hore 2020 bishii afraad ilaa maanta goobaha ganacsigu waxay ku celinayeen war corona jira dadku hal qof ku yimaado xawaaladu waxay lahayn hal qofna loogu yimaado laakiin group baa loogu imanaya goobtii ganacsi ee xawaalada ama shirkadda Soomaaliyeed ku xigtay marka ay aragto saf dheer oo dad ugu jiraan goob ganacsi oo ajaanib ah iyagiina aanay qof iyo laba iyo saddex iyo mooye dad badan ba u soo galayn wuxuu oranayaa irsaaqadii aad cuni lahaydeen qofkan ajnabiga baa qaatay saas uu dacwad ku gudbinaya inta badan waxa soo galay waa dacwada noocaas ah inan shalay aan la kulmay oo Soomaaliya wuxuu igu yiri booliska ay qabtay waa inamada ilaa 2012 halkan ardayda ka ahaa wax ku bartay jaamacadaha ku dhameeyay masterada ka qaatay luqadana si fiican u garanaya wuxuu igu yiri nimankii booliska ahaa su'aalo badan ay weydiiyeen inama ila socday su'aalo badan bay weydiiyeen waxa kamid ahayd xagee degan tahay goorma dalka soo gashay maxaad ka qabataa maxaad u joogtaa form dhan baa laga buuxiyay waxaan ku yiri niman formkan muxuu ahaa waxay yiraahdeen dawladdu waxa ay naamartay dadka gruupka u socda dadkan kala baliga ah ee aadka u badan ee gruupka u socda in aanu yarayno waana sababta hadda la inoo haysto waa sababta noocaas ah bulshada waxaad moodaa Soomaalida halkan ku nool Turki ku nool in ay iyagu indhaha Turkida isku soo jeedinayaan Turkiduna ay isleeyihiin hadii dadkani aanay ganacsanayn idinka adeegan lahaayeen hadii dadkani saa u soo batay dalka ay idinka qaadayaan waxaan u malaynayaa hal qodob in la isweydiiyo waa muhiim hadda dad badan baa waxay ku leeyihiin Turkidu iyaga xun waa cunsuriyiin 2017 iyo wixii ka horeeyay dadkii joogay baa garanaya bulshadii Turkida ahayd ee guryaha inugu soo gargaraaci jirtay ee talaagada intay furto eegi jiray haday maran tahay inoo soo buuxin jiray ee roogaga inoo keeni jiray ee oran jiray waxa tihiin duriyadii Bilaal al-Habashi ee noo duceeya bulshadii nooca ahayd maxaa sababay maanta in ay yiraahdaan dalka nooga baxa way ugu dhacday maalin dhaweyd aniga oo family-ga la socda in la yiri dalkiina ku noqdo maxaa dalka iyaga u joogtaan way ugu dhacday waa cunsuriyad bilaabatay dhaqankeena iyo qaabka aynu u soconayno walaalayaal qayb buu ka yahay waxyaabaha nacaybka ah ee bulshada inagu sameynayso waxaanad ogaataan dawladda Turkigu si kasta ay heshiis ula tahay dawladda Soomaaliya waxa ay codka ka doonaysaa waa muwaadiniintu haday arkaan inaan guryaheena nadaafadooda aynan ilaalinayn inaan basaska iyo safkoodii la ilaalinayn basaska lagu dhex qaylinayo lagu buuqayo in si xun loo dhaqmayo in ganacsigoodii iyo ay isleeyihiin khatar bay ku yihiin nimankan ama dhaqaalihii iyo noloshii idin ka qaadaya hadii ay arkaan way ka codaynayaan dawladda sida awgeedna dawladdu codka bulshada ayay markasta door bidaysaa inaga wax miisaan oo inagu fadhinaa ma jirto dalkan hadaynu rabno inaynu ku noolaano qofka doonaya inuu ka adeegto goob ganacsi ama suuq inuu soo baxo marka uu dan leeyahay kaliya u soo baxo kaligiina u soo baxo dadka kooxda wada socdaan ay iska dayno qofka waayeelka ama aan dal garanayn xawaalad hadaad u socotid uga soo qaad waxyaabaha cajiibka ah maalin dhaweyd inamada xawaaladii iyo goobaha ganacsiga waxay ku shaqeynayaan hadda qaab yara adag bay ku shaqeynayaan dabadeedna meherad Soomaaliyeed in xawaalad haysta ayaa ku shaqeynayay dad bula ballamay wuxuu yiraahdaa hal qof igu imaada wuxuu yiraahdaa aroortii markii aan imi xafiiskii dukaankii Soomaaliyeed waxaan ugu imi 5 taxi oo Turkiya oo taagan waxa la socda min 2 qof min 3 qof oo Soomaaliya la socda Turkidii baa ku soo horeysay xawaaladii meeday lacagtii keena waa arrin dhib ah in aanay shaqeyn xawaaladaha iyo goobaha ganacsiga ee Soomaalida ay keenaysaa hadhowna duruufta ay adkaato dadkeenuna waad ogtihiin oo dhaqaale dibadda looga soo diro ay ku nool yihiin fadlan waxaan si sharaf leh uga codsanayaa bulshada Soomaaliyeed ee Turki ku nool ilmaada rayaal oo qofka baxaya kaligii ha baxo qofka xawaalad tagaya kaligii ha tago bulshada iyo indhahooda yeelan isku soo jeedin inta aynu kala fogaan karno gaadiidkooda aynan inaga oo dhan wada raacin bas baad arkaysaa haaf Soomaaliyiin ama haaf ba ka badan yihiin Soomaalida saaran inta aynu iska ilaalin karno akhlaaqdeena iyo dhaqankeena sixi karno hadaynu rabno dalkan inuu ku soo noolaano aynu ku noolaano inaga marti ah
dal aynu leenahay ma joogno dal aynu sharci ka haysano ma joogno marti baynu nahay sidii martida ahayd aynu u dhaqanno haddii kale dalkeeni baynu xorriyad ku haysanahay dalkeeni aynu ku noolaano muuqaalkan waxaan ugu talagalay inaan wacyigelinta iyo barnaamijka kelmadda yar ku soo jeediyo codsigaana markasta waan ku celcelinayaa dadka xawaaladaha ka shaqeeya waa codsi ay soo gudbinayaan oo ay leeyihiin fadlan hal qof ha loo yimaado oo qofna yuu qof soo kaxaysan intaynu muuqaalka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa salaamu allaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh